inta hadda la xaqiijiyay maleeshiyaadku inta dagaalkii shalay waxa ugu dhintay ku dhawaad ama in ka badan ba 84 maleeshiyo si qarar caadi ah ayay shalay maleeshiyaadku inta dagaalkaasi ugu jabeen gaadiidkan hadda dhiiriga ku jira waa gaadiidkii markaasi farxadka ama cagaha ugu soo baxsaday ciidamada difaaca Sool Sanaag iyo Boqortooyada la soo gaabsho SSB gaadiidkana marka ay soo baxsanayeen waxay soo raaceen waddo aan hore loo marin jirin midaasna waxay keentay marka ay meel la marayaan in dhulka la go'o sida hadda aad ka aragtaanba muuqaalkan iyo sawirkanba wiilka ka soo duulaan tagay Kismaayo Boosaaso Cabud Waaq Jigjiga Gado wuxuu ugu dhintaa deegaanadaan Boqortooyada iyo waa dulmi iyo baadil markasta oo ay iska hor yimaadaan dulmiga iyo xaqa ayuu guusha raacaa shalayna waxay ku jabeen kooxaas weyntu waxay ahaayeen dulmiga ay ku socdeen dadka deegaankan xil dhaqatada ahna ay ku soo duuleen markii la eegana dhaawacna waxa lagu qiyaasay waa la qiyaasay oo kaliya maadaama dhaawacu shalay huwantu ahaa Trabel waxa lagu qiyaasay dhaawac la geeyay Boqortooyada Laascanood iyo Garowe iyo deegaano kale markaasi maamulkaasi Puntland hoos tagta in ku dhow 150 dhaawac maleeshiya ah tiradaasi way ka badan kartaa laakiin kama yaraan karto sida aan xogta aan ku hayo marka inta badan gaadiidka ay soo dhigayaan social media waa gaadiidkoodii horena ugu tisnaa jiray gaadiidka Somaliland kadibna ay kala soo goosteen ari marka hore waan qaban uu noo istaag muray markii dambe baa shaqo ku furnay halkan baan cabar ku dagaalaminay jameedkoodu waa ku ka carray waa maxaabiistii shalay tolo lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay Boqortooyada waa maxaabiista laga hayo ciidamada huwanta qayb kamid ah waxa lagu soo qabtay Meygaagle saaxiib yaal soo dhawaada muuqaalkan hala fogeyso meel fog gaaro waxaan idin soo gudbinayaa xogta qasaarihii naf iyo gaadiid balaha ee ka dhashay dagaaladii shalay ka dhacay Meygaagle iyo Boqortooyada haddaba qasaarahan waxay isugu jiraan gaadiid la qabtay gaadiid la gubay maxaabiis dhaawac dhimasho shalay huwanta waxay u ahayd maalin madow ayaa la oran karaa sidaan ka soo xogtay xogtan ila ku sugan deegaankaasi ayaan sideeda idinkugu soo gudbinayaa wax dheeri ahna ku darimaayo balse marka hore aan ka hormar waxa jirta muuqaal aan soo dhigay 4 cisho ka hor ama 19 bishaan muuqaalkaas waxaan ku sheegay kooxaas huwanta inay qorsheenayaan inay soo qaadaan dagaal gaadmo ah oo jihooyin badan ah inta u dhaxaysa 23 bisha ilaa 26 bisha balse maalin ay ka soo hormareen dagaalkaasna waxay soo qaadeen shalay oo taariikhda ku beegneed 22 bisha dagaalkii shalay ay soo qaadeen kooxaas huwanta wuxuu ahaa dagaal gaadmo ah ayna soo qaadeen saacadu markay ahayd 5tii subaxnimo markii laga yimaado dagaalkan gaadmada ah maanta ka fashilmay maleeshiyaadka huwanta waxa kale oo jira dagaal ay hore u qorsheeyeen maleeshiyaadka huwanta ay ku doonayaan inay ku weeraraan Boqortooyada inta u dhaxaysa 23 bisha ilaa 26 bisha hadda aan ku jirno inkastoo labada ciidan shalay dagaalamay aysan isku dhigin oo waxa badnaaba kuwa huwanta tiraya gaadiidba ereygaana markasta aan ku soo celiyaa maleeshiyaadka huwanta dagaalka shalay qaybta ka ahaa waxay ka koobnaayeen maamulkaasi Puntland ciidankiisa ama waxa tiraadaaba beelaha maamulkaasi Puntland beesha dhulbaahante kuwa ogaadeen ama waxa tiraadaaba beesha absame adigu shalay dagaalkaasi ka dhacay deegaankaasi markii la yiraahdo beel ahaan beesha daarood cid ka maqneed habeeraatee ma jirto dhamaantooda halkaas ayay ku dhamaayeen halka dhinaca kalena ay ahayd oo kaliya beesha habar jeclo oo markaas iska cabinaysay weerarka iyo duulaanka kooxaha huwanta wiilka ka soo duulaan tagay Kismaayo Boosaaso Cabud Waaq Jigjiga Gado wuxuu ugu dhintaa deegaanadaan Boqortooyada iyo waa dulmi iyo baadil markasta oo ay iska hor yimaadaan dulmiga iyo xaqa ayuu guusha raacaa shalayna waxay ku jabeen kooxaas weyntu waxay ahaayeen dulmiga ay ku socdeen dadka deegaankan xil dhaqatada ahna ay ku soo duuleen huwantaas marka meelahaas kala duwan ka yimid inta la gaarin ba qaybaha kala duwan ciidamada Somaliland waxa ba 10 u dhigaba wiilashan hadda firaaq qaawan ee ka yarba 20 jirada الرحمن الرحيم مدرسة سومالان ما توا فرحي سانجر كشتاكو سوانتين ما توا عبادة سلي واقولي سلي على كير نكر مرول بينجا يا جوشة سلي أفر جاري واركا كمان نيمك هو أنت ما أنت قولي بدلنا واقولي ودري دم بام قسمي وحويه على كير يو حنقول قديته يو حلو هرب سبحان الله وحنا الله إن هاي أفر جواب بينجا سوى أفر تبغى كوتش بن ها رسمالانو ما أنت جوشة ينجا له إنك يا هاتنا هون halka asaa laga wada dhacaya dib loo soo noqon mayno ku hodana waan ka yaraamana aw hore waan ka yaraanay waa meesha fogeeya وأركيس هذا تقول أنه هناك وكان الله هناك وبليان وحويان ماكو وسيا عيان وسياري قال صعب صوب رفينا والملك كان وين بثانية وحلاي هاي قف كاستمر هرس مال لنا وينو قف صوت دون تسوق صدق وقود أنا ولا بعد الجراح ayaa ilmaada hayar idinku jirna dagaalka marna loo baqi maayo qaranka iyo waxay toolay ciidanka iyo dadka toolna iyo dalka toolna hadda markaan arkay wiilashani firaha qaawan xitaa kuwan oo kaliya ma ahan kuwa kale ayaan arkay oo sidaan si lamid ah firaha
garanka iska siibay. Waxaan soo xasuustay waagaan yaraa markii kubadda ciyaareyno garanka intaan dhigano ayaan wax soo marsi jirnay saliid waliba saliidda nooca cuntada lagu karsado. Qofka marka marsada saliiddaasi sida loo qabtaa way dhib badan tahay. Sidoo kale saliiddaasi waxaan marsi jirnay markii aan u socono dagaalka iyo markii aan foodada u socono. kulli haddana raggaani micno la'aan garanka uma aysan dhigin oo micno ayaa ku jira sida ay la tahay aniga. Haddaba aan u soo laabto khasaaraha u sababay dagaalkii shalay ka dhacay deegaankani. Inta hadda la xaqiijiyay maleeshiyaadka Huwanta dagaalkii shalay waxa ugu dhintay ku dhawaad ama in ka badanba 84 maleeshiyo. Si qeyr caadi ah ayay shalay maleeshiyaadka Huwanta dagaalkaasi ugu jabeen. Dagaalkaas oo ahaa dagaal saf ballaaran ah. Markii la eegana dhaawacna waxa lagu qiyaasay oo kaliya maadaama dhaawacoodu shalay Huwanta uu ahaa Trabel. Waxa lagu qiyaasay dhaawac la geeyay Buuhoodle, Laascanood iyo Garowe iyo deegaano kale markaasi maamulkaasi Puntland hoos tagta in ku dhow 150 dhaawac maleeshiya ah. Tiradaasi way ka badan kartaa laakiin kama yaraan karto sida aan xogta aan ku hayo. Markii laga yimaadana xogtani dhaawaca dhimashada ah waxa kale oo jira maleeshiya kale markaasi ilaa hadda dhimasho gaari midna aan lagu hayn. Waayo dagaalka shalay kooxaha Huwanta si xun ayay ugu jabeen maleeshiyaadkoodina way kala farxadeen markii dagaalka fooda la isdaray. Marka waxa jira muuqaalo feega ay soo dhigayeen baraha bulshada kooxahaasi Huwanta. Muuqaaladaas waxa kamid ahaa gaadiidkan hadda ku jira dhiiriga. Gaadiidkan wuxuu ku sheegay maleeshiyaadka Huwanta inay ka qabsadeen habar jeclada la dagaalamaysan gaadiidkan waaweyn ma wataanba. Qoriga ugu wanaagsantaana waa Bardalool. Ayagoo Bardaloolkaas wata ay soo baxsadeen maleeshiyaadka Huwanta markaasi ku gaashaaban hubkan waaweyn. Tooda baan u raacnaba. Haday dhacdaba in habar jecel laga qabsado gaadiidkani ayaga waa Huwanta. Maxaa looga qabsaday deegaanada Meegagle iyo Yeyle? Waa su'aal isweydiin badan kuna soo laabanaysa kooxahan Huwanta isbarkan ilaa ayaga sheegtay in dagaalkaasi ay dhibin ka gaareen. Midana waxa kamid tahay qiyaaliga ay Huwantu ay niyadda isku dhisaan si ay moralkooda u ilaaliyaan. Gaadiidkan hadda dhiiriga ku jira waa gaadiidkii markaasi farxadka ama cagaha ugu soo baxsaday ciidamada difaaca Sool, Sanaag iyo Buuhoodle la soo gaabsho SSB. gaadiidkana marka ay soo baxsanayeen waxay soo raaceen waddo aan hore loo mari jirin. midaasna waxay keentay marka ay meel dhex marayaan in dhulka uu la go'o sida hadda aad ka aragtaanba muuqaalkan iyo sawirkanba. inta badan kooxaha Huwanta qiyaaliga ayay niyadda isugu dhisaan. gaadiidka ay wataan ayay soo bandhigaan ayagoo markaasna ka dhigaya inay yihiin gaadiidkii Somaliland. gaadiidkaasi ayagoo markaasna dadka tusaya loogada markaasi gaadiidka ku sawiran. marka inta badan gaadiidka ay soo dhigayaan social media waa gaadiidkoodii horena ugu tisnaa jiray gaadiidka Somaliland kadibna ay kala soo goosteen. marka midaasna wax weyn maaha moralkooda ayay ku ilaashanayaan maleeshiyaadkaasi Huwanta ah. haddana soo laabto maxaabiistii shalay lagu qabto dagaalkaasi yaana waxba hadalka idinku dheereenba oo kuwana maxaabiistiiba waa maxaabiistii shalay tolo lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay Buqdarkeyn waa maxaabiista laga hayo ciidamada Huwanta qayb kamid ah waxa lagu soo qabtay Meegagle iyo Soljoogto waana caruurta yaryar Huwane caruurta ilaashada. sidoo kale gaadiidkii dagaalka shalay laga qabtay maleeshiyaadka Huwanta waxay ahaayeen 4 meela 2 meela iyo mid la gubo. todobadaas gaari ayaa shalay maleeshiyaadka Huwanta gacanta looga dhigay. waana kan gaariga laga gubay maleeshiyaadka Huwanta waxaana ka warbixinaya sida gaarigaani loo gubay sida ay u qabteen ciidamada difaaca Sool, Sanaag iyo Buuhoodle. gaariga marka hore waanu qabanay uu noo istaagi waayay markii dambe baa shiko ku furnay halkan baan cabaar ku dagaalaminay jameedkoodu waa kuwa ka carray waa yalan ka yalan waa kuwa ka yalan